iyo juhdi badan inaan muujino waxa jirta dad inaad bedesho ama maxaan ku raadaa barnaamijka inta lagu hadlay inta ugu badan aan dhageysana waxay ahayd manhajyada jaamacadaha iskuulada wadanka ka jira waan ognahay wadanka problem badan baa ka jira uma fiirinayna dawlad iyo sida intaan dhehayno horta wax badan baa inaga galumaya tusaale yaraan usoo qaato qolooyinkan SYL ahayd maalin dhawad waxaan daawanayay ninka yaqaan abwaan shube Cabdulqaadir shube magaciisa ma dhameystiri karo dadkii buu la hadlayay wuxuu lahaa war waxaan u baahanahay sida muddo badan baan hadlayno gabayaan kaga hadalnay oo waxaan kaga hadalnay buugag la qoran kaga hadalnay oo waxaan kaga hadalnay idaacadihii shirar badan baa la qabtay si dalkii loo bedelo dadkii loo bedelo muhiimadda ugu weyn waxay tahay inaga hadda arday baan nahay dhaqaatiir iyo macallimiin baa ina hortaagan maanta dhamaanteen waxaan wada jecelnahay inaan ka hadalno muhiimadda inoo leedahay waxbarashada muhiimadda inoo leedahay nabad oon la helin lama helayo waxbarasho dhab ah waxbarashada aan soo jeesto marka haday markaan dhahay macnaha in aad hesho dad wanaagsan nidaam fiican leh discipline leh waxay u baahan tahay inaad maxaan ku raado wasaq walba ku soo gaarta aad iska xijiso soo marka waxa jirta 5C waxa la dhaho inkastoo English waa laakiin Soomaali u sheegaya dad inaad badasho waxaad u baahan tahay 5 qodob inaad marto character waxa la dhaho markaad maxaan ku raado dadkii inaga hadda aan sameynayno maanta waan imaanay waxaan soo xaadirnay shirki idinka noo go'aamisanay ahayd in maxaan ku radaa waxbarashada laga doodayo waxbarashadii marka waxaan lagu baahan character labo in macna maxaan ku radaa la is ixtiraamo mar walba qof walba opinionkiisa like fikirkiisa la tixgeliyo qofka wuxuu dhahay qaato kan wuxuu dhahay laakiin hadii maanta aniga hadalka hadda right now dhahayo hadii inaad iga dhageysataan dhamaantiin inta aad ku dhaaftaan tomorrow wal imaanayo day after tomorrow meesha un bay ka bilaabanaysaa soo marka 30 years waxaan dagaal ugu soo jirno dhibaato ugu soo jirno wax baa la bedelayaa wallahi maanta qof aan ogeyn ma lahan dhibaatada ay leedahay marka waa in la sameeyaa commitment balanqaadka la badiyo maanta go'aanka waxaan u imaanay waxay ahayd in wax la bedelo today wayno bilaabantahay balanqaadkeena waa inuu ahaada in wixii maanta aan uga hadlaynay mid walba notebook uu ku qaato ama maskaxdiisa ku qaato uu maxaan ku raada ka dhabayo britol marka la iskugu imaado wallahi dhibaato qabnaa wadanka rabnaa inaan bedelno maalin dhawad waa ka hadalnay soo maxaan bedelnaa waa number 3 waxa la dhaho courtesy waxa la dhaho waxa waaye maxaan ku raadaaye in maxaan ku raad ixtiraamku weyn courtesy-ga in la is ixtiraamo like la soo wada fariisto macallimiinta aan ixtiraamno dhaqaatiirta aan ixtiraamno cilmi aan ka qaadano midda shanaad waxa weeye courage waxa la dhaho courage-ka waxa weeye maanta waan hadlay waxaan u baahanahay in la encourage gareeyo Cabdifataax wallahi ma sha Allah wax fiican oo dalkii iyo dadka u baahan oo ka hadlay waxa la qaato like you know maxaan ku raadaa without courage wallahi I swear to God without courage waxa ma hagaagayaan people waxa weyn macna maxaa la jiray Allah maxaan ku raadaa good behavior it's like all the a tree all the season oo maxaa la jiray miraha laga cunayo waay macna mar walba dhulka macna dhul barwaaqaysan oo dadkii ardaydii wax qabsatay dadaalkooda muujisay